lacagta elektarooniga ah ee lacagta shilinka ah marka la isbarbar dhigo hab adeegsiga ammaanada iyo xagga ku kalsoonaanta tee ku horeysa waxa xalay jaamacadda Safana farcida degmada Gurceel lagu qabtay dood cilmiyeed u dhaxaysa ardayda wax ka bartay jaamacadda Safana doodan oo ardayda ay ku soo bandhigeen hoolka Safana forum ayaa waxa ay ku saabsaneed lacagta kaashka iyo sidoo kale lacagta elektarooniga ah ee lacagta shilinka ah marka la isbarbar dhigo hab adeegsiga ammaanada iyo xagga ku kalsoonaanta tee ku horeysa bismillaah su'aal sadii hore oo galo ah lacagta elektarooniga ah lacagta shilinka Soomaaliga xagga ammaanada ama xagga adeegsiga ku horeysa su'aasha saas u dhicayso ma ruuxantii xilliga shilinka Soomaaliga uu jiray ma jirin lacag laga fikir maanta ama isgaarsiintii shaqay weeday oo meel wax ka iibsada ma laha ama taan ka baxayo ma lahan ii sheeg meel qaab wax ku iibsado lacag ma haysto marka adeegsi markii la yiraahdo lacagta shilinka Soomaaliga aad boqolkiiba fiican waan ku sabaynaa sababtu waxay tahay ama teena joog ama joogin lacagta shilinka Soomaaliga guriga ku taala xilli walba oo baatida isticmaale laakiin lacagtan elektarooniga mar walba waxa u baahan tahay teena ku jirtid telefonkaaga dii maanta cilad ka soo gartaa telefonkaaga wismi isticmaali kartid xilliyada qaar waxa laga yaabaa adoo lacag u baahan in lacagtii inta meesha u tuuribto meel kale ka qaldanto lacagtii aad leedahay u baahnaatid laakiin markii lacagta cash ka haysatid oo gacantaada ay ku jirto inta u baahan tahay markaas ka isticmaalaysaa inta gaan laadahay sano laakiin lacagtan kale elektarooniga dhibaatooyin badan ay leedahay waan ka warqabnaa hadda gobolkeenan waxyaabaha saad ku rafaadiya ama aad ku lahayd dhaqaalihiisa oo soo dhac u keenay lacagtaas elektarooniga ka mid ah xilligii lacagta kaashka ay shaqeynaysay gobolkan gobolada ugu dhaqaalaha fiican wadanka ku jiray laakiinse markii ay dhacday in lacagtii kaashka ay shaqey jirtay 2016 kadib gobolkan dhaqaalihiisa meesha uu joogi jiray ma joogo aad u noqosay waxaan keenaa lacagta elektarooniga la isticmaalo lacagtan tusaale markii la yareeyo dadka waayeelka oo lacagta isticmaalkooda dibka uu ku aho iyo kale dadka waayeelka waxa uu wanaagsan lacagtan inay elektarooniga isticmaalaan tusaale lacagta hore kaashka xilligii ay haysteen qaanada laga buuxaa dhowr milyan ay jawaan lagu shubaa ilmaha yararka dhibaato ay ku kaliftay ama dadka ay ku keentaaba jirto tuugadeeda badneed 2,300 waxba laga xadi jiray dadka waayeelka sidii wax ninka la yiraahdo u tirsadaan iyo si kale dhibaatay ku hay jirtay hadda tusaale qofka waayeelka markii $1 telefoonka loogu shubo waxay leedahay $100 iga bixi qof uu ibaahay lacag iga tuur $100 maskaxda waa ka ogtay in hadda laga tuuray 900 ma igu hartay leed halkaas ninka la yiraahdo qofku wixiisaba ku tirsaaba halka awal markii lacag kaash ay meesha ku jirtay ay 2 milyan in laga baxay iyo 500 in laga kun laga siibay iyo in 2 laga baxay dib ay ku eedayso ogeen waayeelka waxa si weyn hadda ugu fiican oo xilliga lacagta isticmaalkeeda lacagta elektarooniga ah sidaas aan horeba u sheegayba wax tirsanay maalin kasta ay maareynaysaa wax tirsanay qaadaysaa wax tirsanay hal iyo ogaada leedahay mid waa ciladaas sidaas aan ku difaacayaa oo ninka leeyahay ay ku wanaagsan tahay dadaba lacagta elektarooniga ah ay hal mar istaagi karto sabab la xiriira in cilad ay ku timaado company-ga bixinaya midaan kale marka lacagtu inay istaagi karto lacagta kaashka uga dhibaato badan ba markii inay istaagi ogto waxa hadda tusaale anagu gobolkan hadda aan joogno kale tusaale galguduud oo kale dhowr mar ayaa lacagaha kaashka iyadoo la isticmaalaa ilaa 3 mar ayaa tuba iyadoo la og yahay lacag kaash la qaadayo la qaadana 3 iyo 4 maalmood usbuuc 2 usbuuc ayaa waxaan arki jirnaa iyadoo wax dadkii wax kala iibsadaba aan la aragba oo waxay wax ku iibsadaan baa la arag lacagtii istaagtay adoo lacagtii wato jawaan ku wada gaariyaal ku sida ayaa maharadaha la imaanaya ma laga qaadanaya lagu leeyahay lacagtan ma ay rabtaba marka hadda elektaroonigana waxa sabab ay ku istaagi karto adduunkaaba nationalka dhamaaba qaataba adduunkaaba laga isticmaalaaba waxyaabo aad u horumaray tahayba sabab ay hadda ku istaagi kartaa hadda ka horna ma ana aragtan bal halka aan ka aragna lacagaha kaashka meesha la isku nacay meesha dadkii oo dhowr mar habeena baahi u baqtiyay dhowr mar ninka la yiraahdo laga qaada diiday asagoo wata wax lagu soo exchange lacagtii wax laga soo siisay waayay marka midaasna ninka la yiraahdo meel ay waxa ku istaag badan lacagta kaashka ayaa ganacsiga dhankiisa Soomaaliya
xilligan meelaha qaar labada lacag buu ku tiirsan yahay meelaha qaarna wuxuu ku tiirsan yahay lacagta electronic oo kaliya ganacsiga saameynta ay ku yeelatay marka labada dhinacba laga fiiriyo dhanka faa'iidada iyo dhanka khasaarada labadaba lacagtan shilin Soomaaliga iyo electronic labadaba adinkoo dul istaagaya marka hadaan ka hadla ganacsiga cash-ka maadaama faa'iido u lahaa tusaale waxa kuugu filan halkan markii la joogay 15 iyo 16 inta lacagtu ay saddex shilin Soomaaliga shaaho kala markii meesha aad cabaysid shaaho kala marka aad cabtid in waxay 2,000 oo kala laga qaado 2,000 oo shilin Soomaaliya laga qaado lacagtii inflation iyo sicir barriga waxyaabo noocaas ah dhacdo way baxday waxa yimid electronic lacagahan oo EFC-da aan u naqaanay kuwa la midka ah yimid waxa ku qasbantahay dad shaa u baatid 2.4 meelaas amal inaad tuurtid oo 10,000 lacag macna qiimahan u dhigan ilaa 7,000 meelaas meesha 2,000 ka bixi jirta marka faa'iidahan markii la yiraahdo ganacsiga waxa u roonaay lacagaha cash-ka wax kuwa aysan iman dib u dhacaya khasaaraha halka tusaale ganacsatada aniga kamid aan ahay lacagta cash-ka markii la isticmaalayay oo warqada sanad ninka leeyahay ku barafadhiyo ma jirin bal waxaaba laga yaabi jiray hoos u dhaceeda badnay taas marka lacagtan electroniga ganacsiga faa'iido weyn bay ku soo kordhisay faa'iidadeeda aad iyo aad baa wax looga dareemay aad iyo aad bay u wanaagsan tahay dhammaan ninka leeyahay markii aad lacagta hadda adduunka qaab hadda bangiyo waxa jira international lacagta sidii looga diray halkan dal walba oo dhamaad wax uga iibsanaysaa marka ganacsiga 100% lacagta electronic ah faa'iido badan doodani oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa waxa soo qaban qaabiyay maamulka jaamacadda Safana Axmed Faarax Maxamed SMSTV Gurceel